أحمل في قلبي حلما ما أجمل حلمي والله سألاقي ربي يوما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ذقالي أهواد السلامي مقعيقة ورحمة هلك أدنى داوانيسان وملاك جنان. maanta waxaan ka hadli doonaa cashir ka mid ah casharada imtixaanaha inoo ahaa uga hadlaynay tarbiyada caruurta ama barbaarinta ubadka. insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa marxaladda loo yaqaan qaangaarnimada ama muraahaqada. hore waxaa uga soo sheekeynay marxalado badan ee caruurnimada ay leedahay 3 marxaladood. iyo casharadii kasii horeeyay uga hadlaynay uurku jirta, naas nuujinta iyo wax walba oo la xiriiro tarbiyada caruurta. maantana waxaan ka hadli doonaa marxaladii ugu muhiimsaneyd uga hadlayno marxaladda qofka uu ka baxayo caruurnimo uu galayo marxalad weynaan ama uu qofka uu noqonayo hadduu yahay nin rag ah hadii gabar tahayna ee qof dumar ah ee noqonayso ee ka baxayso caruurnimada. insha Allah marxaladan waxyaabo badan oo muhiim ah uga sheekeyn doonaa. waxa uga hadlaynaa 4 qayb oo aad muhiim u ah. waxay tahay muraahaqa maxallaha horta ina fahmno macnaheeda iyo farqiga u dhaxeeyo buluuqa iyo muraahaqada. hore waxa oo soo sheegnay cashirka horeeyay in yani culimada tarbiyada markay ka hadlayaan ay kala qaadeen yani buluuqa iyo muraahaqada inay kala qaadeen. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa madaahirta ama hab koritaanka qofka qaangaarka ah. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa cawaamisha saameyn ku yeelan karto koritaanka qofka qaangaarka ah. markii laga hadlayo muraahaqa maxaa waaye muraahaqada culimada tarbiyada iyo culimaa nafsi dad badan ka hadlay oo waxyaabo badan ku taariifiyeen. laakiin waxaan qaadan doonaa 2 taariifka hore oo taariifka culimada nafsiga ay ku taariifiyeen. sidoo kale waxaan qaadan doonaa taariifka shaasica yani oo caan baxay oo dadka dhan inta badan ay u yaqaanaan ama maskaxdooda ku soo dhaceyso qaangaar markii la dhaho. culimada nafsiga ama cilmi nafsiga waxay u yaqaanaan marxaladda qaangaarka waa marxalad qofka uu ka baxayo caruurnimada uu galayo marxalad weynaan ama rushdi qof oo aqli ahaan koray inuu noqonayo. waxay u yaqaanaan culimada cilmi nafsiga isbedelka ku imaanayo jirka iyo guud ahaan isbedelka ku dhacayo qofka oo waxyaabo badan oo jirkiisa khaarijka iyo daakhilka ay isbedelayaan. sidoo kale waxa kamid ah isbedeladaas ku dhacay qofka aqliyan inuu isbedel ku yimaado jir ahaan ayan kaanad. waxay leeyihiin qofka markuu ku jiray marxaladda caruurnimada koritaankiisa wuxuu ahaa mid oo tartiib ah ama badii ah بينما markuu muraahaqa soo gaaray koritaankiisa uu noqonayo mid oo sariic ah oo aad u degdegayo waxyaabo badan ee ka muuqanayaan qofkii isbedel fiican uu ku imaanayo. isbedeladaas ay u horeeyaan jirka hadii ay dumar tahayna codkeeda uu isbedelayo uu noqonayo mid jilicsan بينما ragga ayaga codkooda uu weynaanayo. sidoo kale waxa isbedel ku imaanaya ama koritaan جهاز كلو يقانو الجهاز التناسلي. تعريف كلابات عام بحي أو تدك إنتو بدن يقانان يا علماء كهذا التربية وحوايه وحالة قفك ودريمايو نيتجب ورير مدحانون سؤال الويدية دad badan oo dhalinyaro ah oo xaalada soo galay jawaabahoodii waxay u ekaadeen qaabkaas. macallimiin badan oo waxa sameeyeen ama Mareykan ah marka taariifkaas culimada nafsiga way ka soo horjeesteen waxay dhaheen ma qaadanayno. sababta u qaadanayno waxay tahay wuxuu ku abuurayaa qofka dhalinyarada ah niyad jab iyo inuu dareemo yani kalsoon daro oo nafsidiisa inuu dareemo sidaas darteed ma qaadanayno. waxaasoo dhan way jiraan xaaladahaas inay qofka ay ku dhacayaan laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye marxaladan inay tahay marxalad uu isbedel sameynayo jirka qofka sidoo kale aqligiisa iyo waxyaabo badan uusan hore u lahaynin ama marxaladda caruurnimada aan jirin oo hadda soo siyaadayo.
insha Allah si fiican u sharxi doonaa casharadana ka fahmi doontaan sidoo kale farqiga u dhaxeeyo buluuq iyo muraahaqa waxa lahay buluuqa waxa waaye isbedelka ku imaanayo qofka physiology ahaan waxa waaye waxyaabaha daaqilka ka dhacayo sida hormoonaadka isbedelayo xubnaha jinsiga oo sameysmayo farqiga u dhaxeeyo buluuq iyo muraahaqa waxa waaye buluuq waxa waaye isbedelka ku imaanayo xubnaha daaqilka ah iyo hormoonaadka iyo sidoo kale qofka inay koritaan sameeyaan xubnihiisa taranka isbedel inuu ku imaado waxyaabo aanan jiri jirin ama waxyaabo uusan lahayn caruurnimadiisii inay marxaladan soo rabaan yani inay soo daahiraan ama ay isku sii diyaarinayaan ama tilmaamo ama waxyaabo ishaarayo inay jiraan hadii ay gabar tahay inay usoo baxaan wax walba oo yani dumarnimo ama naagnimo oo cadeynayo sidoo kale ah hadduu wiil yahayna usoo baxaan muraahaqadana waxa waaye wax oo suluug ama habdhaqanka qofka uu yeelanayo markaas inuu xaalad adag uu ku jiro ee u baahan tahay yani si ka duwan sidii markii hore loola tacaamulayay in loola tacaamulo sidoo kale waxa isbedelayo hab koritaanka qofka qaangaarka ah ma ku jiro marxaladda muraahaqa ah koritaan markii la laho jir ahaan jirka wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood waxyaabo jiro oo daaqil ah oo loo yaqaano physiology ama biology looga hadlo xubnaha gudaha ku jiro sidoo kale xubnaha banaanka ayagana koritaan ay sameynayaan hadii ahaan lahayd dhirirka waxyaabaha qaar oo weynaanayo iyo muruq inuu u sameysmo qofka sidoo kale waxaa korayo caqli ahaan yani qofka inuu koro marxaladda caruurnimada marxalad ka duwan ayuu galay caqli ahaan uu korayaa sidoo kale wuxuu korayaa dhanka bulshada ama ijtimaaci ahaan marka dhahayna waxaa ka wadnaa waxaa wanaagsanaanayo calaaqaadka kala dhexeeyo dadka kale wuxuu jecel yahay mar walba inuu noqdo qof oo mustaqil ah jecel inuu ka qayb qaato waxyaabaha khayriga ah ama mushaarako uu la sameeyo dad isaga ka duwan sidoo kale waxaa koritaan sameynayo waxa loo yaqaano النمو الانفعالي waxaa laga wadaa yani xaaladda qofkaas uu dareemayo marxalada طفولة marka ku jirnay waxaan ka soo sheekeynay qofka ama ilmaha markuu yar yahay marxaladan uu soo gaarin uu caruurnimada uu ku jiro inficaalaadkiisa inay mundabid ama mustaqir inaysan ahayn hal meel aysan ku sugnayn mararka qaar uu waxyaabo yar aad uga xanaaqayo waxyaabo basiid uu ku farxayo qofka markuu marxaladan soo gaaro way ka duwan tahay inficaalaadkiisa waxay noqonayaan mustaqir waxay noqonayaan kuwa degan inficaalaadkana waa rajeynaya inaa fahanteen waxaan ka wado waa xaaladda qofka uu dareemayo haddii ahaan lahayd xaalad murug farxad xanaaq iyo waxyaabaha la midka ah ciwaanka ugu dambeeya aan rabno inaan cashirka uga hadalno wuxuu yahay waxyaabaha saameynta ku yeelan karo koritaanka waxaa saameyn ku yeelan karo habka hooyada iyo aabaha ay u soo koriyeen caruurta ay isku fahamsanaayeen isla markaasna ay isku waafaqsanaayeen tarbiyada ilmahooda sidoo kale waxaa saameyn ku yeelanayo loolanka ama dhibaatooyinka dhex yaalo hooyada iyo aabaha hadii hooyo aab mar walba istagaalayaan isku xanaaqsan oo xaalad cunfi ah haduu ku soo koray hadhow marxaladda markii la joogo saameyn ku yeelanay horena waa uga soo sheekeynay wax badan sidoo kale waxaa saameyn ku yeelanayo waxyaabo uu ka dhaxlayo oo shakhsiyadiisa inay sameysmato ama hoos ay noqoto ka qayb qaadanayo waxaa kamid ah waxyaabaha uu ka dhaxlayo hooyada iyo aabaha labadiisa waalid uu ka dhaxlayo hadii ahaan lahayd waxyaabo la xiriiro jir ahaan shakliga qofka qaabka uu noqonayo iyo caqligiisa nooca uu noqonayo sidoo kale koritaanka qofka muraahaqa ah waxaa saameyn ku yeelanayo dheecaanada qaar ee qanjirada soo daayaan markii la gaaro marxaladda qaangaarnimada ayadana saameyn ku yeelanaysaa sidoo kale waxaa saameyn ku yeelanayo jawiga meeshaas uu ku nool yahay hadii ay tahay kuleel ama qabow ay tahay waxay
saameyn ku yeelan kartaa ama waxay sababi kartaa qofka inuu ka dibdhaco xaaladahan aan soo sheegnay ee qaangaarnimada tilmaamayo inuu ka dibdhaco mararka qaarna waxay sababi kartaa inuu ka hormaro yani de ahaan isagoo gaarin inay waxyaabahan aan kasoo sheegay dhan ee ka soo wada muuqdaan sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan karo qodob muhiim ah mar walbana aan ka hadalno horena aan uga soo hadli jirnay waxay tahay cuntada isku dheelitiran ama waxyaabo healthy ah qofka uu cunaayo ayadana saameyn ku yeelanay sidoo kale marxaladan waxaa loo baahan yahay qofka qaangaarka ah in yani raashinka ama kimiyadii in uu ka qaadan jiray in ka badan ayuu ka qaadanayaa waana muhiim mar walba in lagu dadaalo ilmaha iyo dadka waaweyn cuntada ay cunayaan inay noqoto cunto isku dheelitiran oo wax walba laga helayo hadii ahaan lahayd borotiinaad carbohydrate nashawiyaadka vitamins wax walba in laga helayo cashirkeena intaas uu ku egyahay aada u mahadsantihiin insha Allah weli ma noo dhamaanin waxaa soo socda fiidiyoyaal kale aan uga hadli doono waxyaabo muhiim ah waa mahadsantihiin